أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرنامج كي لبعض إنه كهذا إني شعاعية سمايان سلفون تاوريس أما وحيالها يقولون نقانو براحة لقيتها وحافظها دحدودة لو استعماله أما ويفها هذا إنترنت هذا أما تلفون هذا لو استعماله يو أنتينين كحرن نوعية إلكترومغناطيسيك ويف كما شعاعية أي سيدايان يصامين كاي كليين بلا آذن شمبرها يو أنا راح كناعة دراسة داسة عن صمنا السبية برنامج كاسي أبونت هي رقم كأي عشرينك أو عن صوبن تجايو برنامج كلابات وحن مجعلها هنا isaga oo kooban barnaamij labaad inaan isaga laba qaybood aan ka dhigo qaybta koobaad inaan ka hadlo barorta daraasadihii lagu sameeyay sida ay ahaayeen iyo wixii maxsuul ahaa ka soo baxay saameyn ku leeyihiin in badan ayaa adduunka ay ka hadlaan sulfur towers kaasi lagu taagayo magaalada dhexdeeda iyo masaafada ay u jiri karaan meelihii dadku ay ku nool yihiin waxa laakiin maanta aan jecelahay inaan barorta daraasadihii hore lagu sameeyay dhinac caalam iyo dhinac deegaan ahaan annaga aan ku samaynay aqoonta iyo dhaqanka aan ku samaynay iyo xogtii aan ka helay markaas caalamiga aan soo rurnay aan isku eegnay xogta caalamiga ah sida looga hadlayo iyo inagu sida aynu uga hadlano ayaan jecelahay maanta inaan ku soo koobo barnaamij labaad oo aan ka samayn doono ayaa jira oo iyaguna aan ka hadli doono dhibaatooyinka ay ku keenaan bini'aadanka ama xayawaanka sida shimbiraha oo kale iyo noocyada xanuunada laga qaadi karo ilaa hadda saameynteediina aan hayno iyo waraysiyo aan ka soo qaaday dad towraskaasi lagu taagay magaalada dhexdeeda dadka degan iyo saameynta ay ku yeesheen aan ku bilaabo markaasi microwave xanuunada la yiraahdo microwave-yada ay keenaan waxa la yiraahdaa MSS oo macnaheedu ay tahay microwave sickness syndromes taa macnaheedu waxa weeye xanuuno ay keenaan ayaa jira shucayadaasi ay soo daniyaan electromagnetic wave kaasi sharax guudna waxaynu ka soo bixinay markii ugu horeysay inaynu sheegnay qaabka telefoonada u shaqeeyaan noocyada toweriska xidhiidhka ay la sameeyaan iyo sida electromagnetic wave oo isku bedelo marka hore isagoo marka hore antenna telefoon ka baxaya hadana uu towerka galo towerkuna isagoo si convert gareeyo uu awood kale ku saydaro kadibna uu si gudbiyo iyo waxa la yiraahdo MSG-ga oo ah isaguna home MSG iyo foreign MSG oo iyagana ka soo hadalnay dhinaca kale waxaan ka soo hadalnay oo kale deegaanka sida loo kala qaybiyo hexagon ama cell loo kala qaybiyo iyadana aan ka soo hadalnay marka daraasadii ugu horeysay waxa laga sameeyay Russian cilmi-baarayaal Russian 1950kii waxayna heleen calaamado fara badan oo ay keenayaan oo ay ka mid tahay madax xanuun iyo in qofku fatigue oo noqdo labada margi dhinacyada labada margi oo xanuuna dysfunction waxa yiraahdaan ocular dysfunction oo isaguna stress kaasi qofka ku yimaada iyo xanuunadiisa oo keeno diisan baa iyadana kamid ah oo yeesha qofku qaabka hurdada oo seexanayo ayaa isagana disorder ku sameeyo oo noqdaa in hurdada kale qofku inuu ka bogan waayo ama uu soo tooskiisa qodob ama hore u seexan waayo oo kale way samaysaa tawana daraasadaasi markay sameeyeen Russian clinical manifestations ka soo baxay waxay noqotay in markaasi oo hadhow toole waxa oo ka imanaya waxaasi ay tahay tumor cancer oo kale ama dhiig laftiisa oo isbedelaya in badan waxaan aragnay in dadka badankiisu ay leeyihiin xanuunadaasi macaanka oo kale waqti laga bilaabo 9 wixii ka horreeyay markaan dib raac oo barnaamijka dambe aad ugu jecel ugu sharaxi doonaa dib raac ugu sameynay dadka xanuunkaasi aad ugu badnayn dhiigkana aad ugu badnayn marka
qolada raashiyaanka waxay yiraahdeen electromagnetic wave kaasi saameynta ay leedahay wax kamid ah tumarkaasi iyo blood change kaasi markaas waxa weeye dhiigga oo isbedelaya waxay kale soo saareen in dhinaca reproductive ama cardiovascular abnormalities waxay yiraahdaan oo kale waxa weeyaan aniga qaabka oo kale fertilization uu dhacayo iyo jinsiga bini'aadamka oo kale ayaa isugu saameyn ay ku yeelataa oo daraasadahan soo bandhigi doona ayaan aad ugu sharaxi doonaa waxaad arki doontaan waxyaalo yaab oo markaad u fiirsataan isoronasan oo dadka qaar ku sheegayaan oo oranayaan waqtigii laga bilaabo waqtigaasi oo taawarkaasi halkaasi lagu taagay saameynta inta leh ayaa dhacday oo iyadana aan ka hadli doono haddii la yiraahdo cunto fara badan ayaa jira memory loss baa jira oo environmentka oo iyagana wax weey ilowshiyo fara badan ayaa iyaguna yimaada kadib daraasadaasi wixii ka dambeeyay 1970 ayaa waxay sameeyeen haddana qolo oo Mareykan oo American researchers ayaa waxay sameeyeen report ay soo saareen oo la mid ah kii raashiyaanka soo saaray 1950 reportkaasi markaas waxa uu ahaa wax badan kaga muddo weyn ka hore raashiyaanka ay soo saareen waxay yiraahdeen electromagnetic radiations ama EMR kaasi waxa saameyn weyn uu ku yeeshay bay yiraahdeen marka loo eego qaabka uu dhacayo frequency-ga waves radio waves frequency-go qaabka ay u dhacayaan ayay saameyn weyn ama saameynta ku kala duwan tahay bay yiraahdeen dhinaca fiican ahaan iyo dhinaca anteena ahaan oo taawarka ku taala ayay ku kala duwan yihiin bay yiraahdeen oo anteena taawarka dabcan sideen hore u sharaxnay way kala duwan yihiin qaar baa ay awood weyn leh qaarna awood weyn male qaar baa ku xiran masaafo gaaban ku xiran qaar masaafo dheer ku xiran saas oo kale iyaguna inta ay ku dareen waa intaasi oo waxa dhinaca masaafada ay kaga dareen xagga kuwa kale ay soo saareen xanuunada ay daraaseeyeen ay waxna keenayaan oo taawarisu keenayaan waxa ka galiyo dhinaca biology labada daraasadood waxay aad u kala duwanaayeen dhinaca fox waxay saareen qalab physicalka xagga aragtida iyo muuqaalka ay saareen qalab waxay saareen dhinaca biology ahaan oo jir ahaan iyo isbedelkii jirka ku dhacayay ayay sameeyeen ilaa ay wax soo saaraan qof inta mirir oo telefoonka ku hadlo isaga oo fadhiya ama isaga oo socda iyo saameynta qaabka shucaaca ee taawarisu ku boornay halkan taawarkaas markiisa haya haddana taawarkaas uu gudbinayo qofkii masaafo dheer oo kale 1 kilomitir oo kale ma ku socdo kilomitirkaas waxa laga yaabaa in taawarkaasi kilomitirka أو هاي التلفون كاغو كحرين هاي مسافة سي يلا مسافة ضو دحية دحدود أتشوفتوه كله كامل كاتب حضو طبعا تاوركي كلا أياكو قبنا يسونا أياكو قبنا يد MSC جاي هيا وده فورين باتكشة فورين كاسمك كاسمو جوسي قدبنا يا كان كله شو عاسمك كاتب حضو ككلاش عيسى أياكو قبنا يا مركب لنا واحد كه يعني يبو حاجة بيولوجي أهم أي أجن marka assessment yadii ugu dambeeyay labada marka uu ka imaano waxa la sameeyay 2001 laga bilaabo ilaa 2020 oo sanadkii ugu dambeeyay inaan soo dhaafnay dabcan daraasadaha iyo waxyaalaha la helayna waxa weeyaan aad ajiiba ka duwan waqti waxa jirtay loo jiray waqti waxa jirtay diyaaradaha iyo basaska iyo waxyaalahaasi loo jiray sigaar waa ka mamnuuc oo kale loo jiray oo dadku ay la yaab jireen imika oo kale wax laga yaabaa in dadku ay la yaabaan ay raxdaan oo kale maxaa ay looga hadlaysan tawarka looga hadlayaa telefoonka hadalkiisa faraha badan ee isticmaalayso maxaa looga hadlayaa qofku si raxdaan laakiin marka hadhow tolo la ogaado wax weyn ayay noqonaysaa oo qofkii waxa jira qaabab barnaamijkan imika aynu wadno aynu ugu dambaysin doono oo qaabka loo ilaaliyo telefoonka mar walba fanaad oo kale madaba ma aha hada markaas xana soo kale iska xidho kale ayaa wanaagsan nooca waves kugu jira guriga oo kale
waqtiyada la seexanayo kale in iska baqtiyo oo kale ay haboon tahay taasi waa iska wada garanaya waxa kale oo iyaduna jira qofku inta marada uu ku hadlayo ma dhigta ayuu saaraya telefoonka mise earphone ku hadlaya qofku ma jeebadu gashanaya mise wuxuu jeebada hoos u gashanaya mise jeebada sare u gashanaya mise gacanta ku qaadanaya iyada lafteedu waxay leedahay waxyaalo aad ka hortegi kartid oo hadhow barnaamijka dabaan kusoo gudbin doono marka maanta intaasi ayaan ku koobaya qaybihii daraasadihii laga sameeyey kuwii ugu dambeeyana dabcan waxa weeye Hindiya Latin America Brazil ay kamid tahay iyo Mexico Europe meel badan baa laga sameeyey oo Belgium iyo ay kamid tahay France UK ay kamid tahay mid walba maxsuulka ka soo baxay waxyaalo yaaba weeyaan marka inagu daraasadaas aynu sameynay xaq loo kala ahaan hadii la yiraahdo waano barnaamijka ka ku-xiga oo aynu kaga hadli doono dhibaatooyinka biological ahaan iyo physical ahaan ee uu keeno tawliskaasi oo wifi-ga guryaha dhigan iyo dabcan telefoonadaasi smartphone-ka aynu isticmaalno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.